السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتا شرفta leh adduunka meel kastaa ka joogtiin kusoo dhawaada cunto macaan channel fadlan maxaan kaa codsanayaa channelka daa soo booqatee inaa subscribe ii sartid muuqaalkan hadduu kusoo gaaray maxaan kaa codsanayaa inaa like ii sartid asxaabtaadii familigaada la sheegarisid aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay asxaabtayda qaaliga maanta maxaan samaysanaynaa qado dhammaystiran oo ka kooban baasto saldhaato iyo suqaar cabitaan sambuus laga sameeyey chicken iyo macmacaan qadada kadib oo oreo cake insha allah la socod wanaagsan soo dhawaada bismillaah marka hore suqaarka ayaan karinayaa digsiga pressure cooker ayaan dabka soo saaray kadib maxaan kusoo shubayaa xoogoo saliid markay soo kululaatay kadib maxaan kusoo darayaa 2 xabo basal aan si yar usoo jarjare kadib markan maxaan sugayaa basasha ilaa ay kasoo bislaato asxaabtayda qaaliga basasha markana diyaar waaye markana maxaan kusoo darayaa hilib geel oo nus kiilo marka hore hilibka iyo basasha ayaan si fiican iskugu darayaa asxaabtayda qaaliga markana maxaan kusoo darayaa hal qaado sanjabiil iyo toon aan isku soo tumay kadib maxaan kusoo darayaa hal qaado yar xawaaji burbuur kadib maxaan kusoo darayaa qaadada yar nuskeeda oo huruud kadib maxaan kusoo darayaa qaadada yar nuskeedii xawaaji dhuudhuub iyo qaadada yar nuskeeda oo filfil asxaabay markana maxaan kusoo darayaa hal qaado yar oo cusbo kadib markan intan ayaan si fiican isku darayaa asxaabay hilibkii xawaajiyaha markana si fiican ay isku darmadeen kadib markan waan daboolayaa dab gaaban ayaan ku karinayaa ilaa 20 daqiiqo hilibka asaga ayaa biyaha uu keeno ayaa marka hore si fiican ugu karinayaa asxaabtayda qaaliga 20 daqiiqo kadib markana digsiga ayaan kusoo laabtay markana maxaan ku darayaa biyo kadib waan daboolayaa maxaan sugayaa hilibka ilaa uu kasoo bislaado ama ilaa 30 daqiiqadood digsi caadi ah isticmaalaysidna ka badan ayuu qaadani asxaabtayda qaaliga hilibka markana diyaar waaye uu bislaaday markana maxaan kusoo darayaa kabsar caleen aan soo tumay kadib maxaan kusoo darayaa hal xabo karooto iyo barbarooni aan soo jarjaray intan ayaa markana si fiican isku darayaa maxaan sii karinayaa ilaa 1 daqiiqadood asxaabay cusbada ka dhadhami ugu dambeyntii markana wax yar cusbo ayaan ku darayaa suqaarkeeni markana diyaar waaye dabka ayaan ka qaadayaa maxaan rajeynaa inaad ka hesheen markana maxaan karsanaynaa suugada baastada insha allah la socod wanaagsan digsi ayaan dabka soo saaray kadib maxaan kusoo shubayaa xoogoo saliid markay soo kululaatay kadib maxaan kusoo darayaa 2 xabo basal aan si yar usoo jarjaray marka hore maxaan sugayaa basasha ilaa ay kasoo bislaato asxaabay basasha markana way soo bislaatay diyaar waaye kadib markan maxaan kusoo darayaa xoogaho hilib geel oo shiidan marka hore hilibkii basasha ayaan si fiican isku darayaa hilibkana si fiican ayaan kala bixinayaa dab gaabanna waan isticmaalayaa asxaabay markana maxaan ku darayaa xawaajiya ugu horeyn maxaan ku darayaa qaadada yar nuskeeda oo filfil kadib maxaan ku darayaa qaadada yar nuskeedii xawaaji dhuudhuub kadib maxaan ku darayaa qaadada yar nuskeedii oo xawaaji burbur
kadib maxaan ku darayaa qaadada yar nuskeeda paprika, kadib maxaan ku darayaa xoogo cusbe kadib markan hilibkii xawaajiya ayaan si fiican isku darayaa. asxaabay markana maxaan ku soo darayaa 2 qaado yaanyo shiishiid, kadib maxaan ku soo darayaa kabsar caleen iyo toon aan isku soo tumay. kadib intan ayaan si fiican isku sii darayaa. asxaabay markana maxaan ku soo darayaa 4 xabo yaanyo aan soo shiiday, kadib maxaan ku soo darayaa 1 bakeeri oo biyo ah. kadib digsiga waan daboolayaa, dab gaaban ayaan ku karinayaa ilaa 20 daqiiqadood. asxaabay suugada intay karayso maxaan rabaa baastada inaan sii kariyo. digsi aan biyo kusoo shubay aan dabka soo saaray, biyaha markay soo karkareen kadib markan baasta ayaan kusoo ridayaa, kadib maxaan kusoo darayaa cusba, kadib markan maxaan sugayaa baastada ilaa ay kasoo bislaato. aadna uma karinay, kaliya maxaan karinayaa ilaa 4 daqiiqadood. markay wax yar adag tahay ayaan biyaha ka miirayaa. asxaabteyda qaaliga baastada markana diyaar waaye, biyaha ayaan kasoo miirayaa. dhinaca kale suugada markana diyaar waaye, marka hore waan isku celinayaa, kadib maxaan kusoo darayaa xoogo cusbe kadib baastada ayaan kusoo ridayaa. asxaabteyda qaaliga suugada iyo baastada ayaa markana si fiican isku darayaa, dab gaabanna waan ku sii karinayaa ilaa 4 daqiiqadood. asxaabteyda qaaliga ugu dambeyntii baastada markana diyaar waaye. waa baasto saldaato aad u macaan badan oo dhadhan leh, maxaan rajeynayaa inaad ka hesheen. markana maxaan sameysanaynaa cabitaanka, insha allah la socod wanaagsan. makiinada cabitaanka ayaan soo qaatay, kadib maxaan kusoo ridayaa qara aan soo jarjaray, kadib maxaan ku darayaa 2 xabo cambo aan soo jarjaray. kadib markan maxaan kusoo darayaa cananaas aan soo jarjaray, kadib maxaan kusoo darayaa 2 xabo karooto aan soo jarjaray, kadib maxaan ku darayaa 8 xabo passion fruit. kadib maxaan kusoo darayaa wax yar sanjabiil aan soo jarjaray, kadib markan maxaan ku darayaa sokor, haddii kale waa iska dhaafi kartaa. kadib maxaan ku darayaa xoogo biyo kadib waan soo shiidayaa.
ugu dambeyntii cabitaanka sidan qurux badan ayuu kusoo baxee. Waa cabitaan aad u macaan badan, aadna u fudud. Maxaan rajeynaa inaad ka hesheen. Asxaabay, markana maxaan sameysanaynaa sambuus oo laga sameeyay digaag. Insha Allah la socod wanaagsan. Digsigan maxaan ku haystaa 1 kiilo digaag oo shiidan, laakiin dabka kuma shidin. ugu horreyn maxaan ku darayaa 1 qaado toon, kadib maxaan ku darayaa qaadada nuskeedii oo sanjabiil aan soo shiiday. kadib maxaan ku darayaa qaadada yar nuskeeda oo filfil ah. kadib maxaan ku darayaa 1 qaado yar xawaaji dhuudhuub. kadib markan maxaan ku darayaa qaadada yar nuskeeda oo xawaaji burbur ah. kadib maxaan ku darayaa qaadada yar nuskeeda oo huruud ah. kadib maxaan ku darayaa 1 qaado yar oo cusbo ah. kadib intan ayaa markana si fiican isku darayaa, markana dabka ayaan u shidayaa. hilibka ayaa markan iyo xawaajiyaha ayaan si fiican isku darayaa. dab gaabanna waan isticmaalayaa. hilibkana maxaa la rabaa inaad si fiican u kala bixisid, qaadad inaad ka dhaaftid ma la rabo. asxaabteyda qaaliga markana hilibka si fiican ayaan u kala bixiyay. kadib waan daboolayaa, dab gaaban ayaan rabaa inaan ku huriyo ilaa 10 daqiiqadood. asxaabteyda qaaliga 10 daqiiqadood kadib markana maxaan ku darayaa 2 xabo karooto aan soo hoolay. kadib hilibka iyo karootada ayaan si fiican isku darayaa. kadib markan maxaan ku soo darayaa kabsar caleen aan soo jarjaray. kadib maxaan ku darayaa basbaas ilaa 4 xabo aan soo jarjaray. kadib markan intan ayaan si fiican isku darayaa. asxaabteyda qaaliga markana maxaan ku soo darayaa 3 xabo basal aan si yar u soo jarjaray. hilibka iyo basasha ayaa markana si fiican isku darayaa. dab xoogana waan isticmaalayaa. asxaabteyda qaaliga markana maxaan ku darayaa 1 qaado oo subag ah. subaga chickenka caraf gooni ayuu u yeeli. kadib maxaan ku darayaa liin dhanaan aan soo miiray. kadib markan maxaan ku darayaa cusbada ka dhadhami. intan ayaa markana si fiican isku sii darayaa. chickenka markana diyaar waay, dabka ayaan ka qaadayaa. maxaan rajeynaa inaad ka hesheen. asxaabay meeshan maxaan ku soo diyaarsada foolyada. haddaad rabtid sidaan u sameeyay channelka ay ku jirtaa, waa ka fiirini kartaa. markana sambuuska ayaan duduubayaa. insha Allah dhammaantood barkaan bogo ayaan isku soo laabanaynaa.
asxaabteyda qaaliga ah sambuuska dhammaantood sidan ayaan usoo diyaariyey. Dhinaca kale saliid ayaan dabka saartay. Saliidda markay soo kululaato kadib sambuuska ayaan ku ridayaa. Kadib maxaan sugayaa intuu kasoo bislaado ama ilaa uu brown kasoo noqdo. ugu dambeyntii sambuuska sidan qurux badan ayuu kusoo baxay. Waa sambuus chicken laga sameeyey aad u macaan badan oo dhadhan leh. Waxaan rajeynayaa inaad ka heli doontiin, aad ka faa'iidi doontiin. markana ugu dambeyntii maxaan sameysanaynaa macmacaanka Oreo cake insha Allah. la socod wanaagsan, soo dhawaada. bismillaah. marka hore maxaan jarjarayaa buskudka Oreo ilaa iyo 14 xabo. asxaabay buskudka markaan jarjaro kadib baaquli ayaan ku ridayaa. kadib dhinac ayaan iska dhigayaa. markana steepka ku xiga ayaan gudagalaynaa. meeshan maxaan kusoo diyaarsaday saxamaanka foornada aan u isticmaali lahaa. marka hore subag ayaan marinayaa. kadib wax yar bur ayaan ku shubayaa. kadib dhinac ayaan iska dhigayaa. asxaabteyda qaaliga ah markana steepka ku xig ayaan gudagalaynaa. baaquli ayaan soo qaatay. kadib shaqshaq ayaan soo saaray. kadib maxaan kusoo shubayaa bur 2 bakeeri iyo bakeeri kale marka loo qaybiyo 3 meel qayb ka mid ah. kadib maxaan ku darayaa koob marka loo qaybiyo 4 meel qayb ka mid ah oo warange ah. kadib maxaan ku darayaa qaadada yar nuskeeda baking powder. kadib maxaan ku darayaa qaadada yar nuskeeda baking soda ah. kadib maxaan ku darayaa qaadada yar nuskeeda oo cusbo ah. kadib markan intan ayaan si fiican isku shaqshaqayaa. kadib asxaabay markana burka diyaar waay dhinac ayaan iska dhigayaa. markana steepka ku xig ayaan gudagalaynaa. baaquli ayaan soo qaatay. kadib maxaan ku ridayaa nus koob oo subag ah. kadib maxaan ku darayaa nus koob oo saliid ah. kadib maxaan ku darayaa sokor 1 bakeeri iyo bakeeri kale wax yar dhiman ah. kadib markan makiinada ayaan usoo qaadanayaa. intan ayaan si fiican isku darayaa, u qasayaa ilaa 7 daqiiqadood. asxaabteyda qaaliga ah sokorta iyo saliidda iyo subag markana diyaar waaye. markana maxaan kusoo darayaa 3 xab ukun ah. hal ayaan ku darayaa. ayaan ku darayaa. marka maxaan qasayaa ilaa iyo 15 second. kadib kii labaad ayaan ku darayaa. haddana sidoo kale ilaa iyo 15 second ayaan qasayaa. kadib haddana ukunta saddexaad ayaan ku darayaa.
asxaabteyda qaaliga ukunta markan si fiican ay u qasmatay kadib markan maxaan ku soo darayaa hal qaado iyo wax yar oo vanilla carfisa kadib maxaan ku darayaa hal qaado yar oo qal kadib wax yar ayaan sii qasayaa. asxaabteyda qaaliga intan markana diyaar waay markana maxaan ku soo darayaa burka kiskis ayaan ku darayaa kadib maxaan ku darayaa hal bakeeri oo caano caanahana kiskis ayaan ku darayaa. asxaabteyda qaaliga burka markana diyaar waay ugu dambeyntii markana maxaan ku darayaa buskudka marka hore jajabinaye kadib markan burka iyo buskudka ayaan si fiican isku darayaa kadib saxamaanka foornada ayaan ku shubayaa aan u kala qaybinayaa. asxaabay keega markana diyaar waay markana foornada kulul ayaan gelinayaa. foornada dabka maxaan u geeyay 180 maxay ku jirayaan ilaa 30 daqiiqadood. ugu dambeyntii keega markana foornada ayaan kasoo saaray istakiin ayaan dhexda u gelinayaa asagoo engegan haduu soo baxo maxaa waay keega diyaar waay. markana waan daboolayaa ilaa ay kasoo qaboobaan shukumaan ayaan ku daboolayaa. markana stepka kale ayaan guda galeynaa. marka hore maxaan shiidayaa buskudka Oreo ilaa 14 xaba inaa shiididna laazim ahan bacinta ku ridid ayaa kal ku jijabini kartaa. kadib markan buskudka dhinac ayaan iska dhigayaa baaquli ayaan soo qaatay kadib maxaan ku soo ridayaa hal bakeeri iyo nus oo subag kadib maxaan ku soo darayaa 2 bakeeri iyo bakeeriga saddexaad oo wax yar dhiman oo sokorta shiidan kadib maxaan ku darayaa hal qaado iyo nus oo caano kadib maxaan ku darayaa hal qaado iyo nus oo vanilla carfise kadib makiinada ayaan usoo qaadanayaa intan ayaan si fiican isku darayaa aan u qasayaa ilaa iyo 5 daqiiqadood ama ilaa smooth ka soo noqdaan. asxaabteyda qaaliga sokorta markana si fiican ay u qasmatay kadib markan maxaan ku soo darayaa buskudka aan shiiday. sokorta iyo buskudka ayaa markana si fiican isku darayaa. asxaabteyda qaaliga creamka markana diyaar waay dhinac ayaan iska dhigayaa. dhinaca kale keega ayaan usoo laabtay markana way soo qaboobeen weelka foornada ayaa marka hore ka saarayaa. asxaabteyda qaaliga markana step ku dambeeyay ayaan guda galeynaa.
keega ayaa markana kareem marinaya. kadib asxaabay markana maxaan ku shubayaa 3 xabo buskudka Oreo aan soo jabiyay. haddii kale waa iska dhaafi kartaa, laazim maahan. asxaabtayda qaaliga keega markana maxaan hoos kaga shubayaa buskudka aan soo shiiday ilaa 3 xabo. kadib kareemka inta kala soo hortay ayaan bac ku shubayaa. kadib wax yar sharaxaad ayaan kor kaga yeelayaa. kadib firinjeerka ayaan gelinayaa, muxuu ku jirayaa ilaa 2 saacadood. asxaabtayda qaaliga ugu dambeyntii keega markaan fridge-ka ka soo saaray sidan qurux badan ayuu ku soo baxay. waa Oreo cake aad u macaan badan, waa qado dhameystiran iyo casriyo isku dheelitiran. maxaan rajeynayaa dhammaantood inaad ka heli doontiin, aad sidan u sameysani doontiin. inta haysanin Allah ha siiyo, inta haysatana Allah u barakeeyo. ilaa iyo intan hadday ila soo gaarto waan kaaga mahadcelinayaa. muuqaalkan hadduu ku soo gaaray maxaan kaa codsanayaa inaad like ii sartid, asxaabtaadii familigaada la sheegaraysid. channelkan haddaad soo booqatay maxaan kaa codsanayaa inaad subscribe ii sartid. muuqaal lamida intaan kulmi doono, sidaas iyo nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.